daawade idilhaantiin meel baad naga daawanaysaan ku soo dhawaada waxaan idila wadaagayaa sidaad wada orkayseen waxa soo gabagaboobay horyaalkii kubadda cagta heerarkiisa kala duwanaa iyadoo guud ahaan gobolada uu ka qabsoomay qaar kamid ah balse xiise gooni ay lahayd caasimadda Hargeysa kooxo badan baa ku loolamayay oo fac weyn muddo 20 sano soo jiray waxa xiise gooni leh in kooxo in badan ku heerka koobaad kamid aha oo ay soo mareen ciyaartoydii caasimadda ugu wanaagsanaa ay maanta heerka labaad ku dhaadhaceen haddaba waxa daawada isweydiin mudan laba kooxood ayaa heerka labaad tagay waa markii ugu horeysay ee ay laba kooxood heerka labaad tagaan laba kooxoodna ay heerka labaad ka soo dalacaan oo ay heerka koobaad yimaadaan waxa xiise gooni leh maadaama horyaalkii dhamaaday oo isha lagu wada hayaa iyadoo la filayo maalmaha soo socda in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaabili doono kooxdii horyaalka ku guuleystay markii koobaad ay tahay koox heerka koobaada walaal aan aragnay kooxaha heer gobol xitaa aan qaabilin madaxdu balse tan ay noqonayso markii ugu horeysay madaxweynuhu qaabilayo koox heerka koobaada waxa lagu abaal marin doonaa intaas oo dib baynu ka eegi doonaa waxaan idin weydiinayaa waxa la bixin doonaa sida la og yahay habeenka la wada sugayo waa 6 abaal marinood dadyo kala duwan baa aragtiyo kala duwan ku cabirayay guud ahaan iyadoo fikirro kala duwan ay ku dhiibanayeen qof walba uu eegayay cidda u qalmaysa aragtidiisa iyadoo si dhow loola socday horyaalkaasi oo si joogta dadku ay ugu xidhnaayeen daawashadiisa qaar kamidana taageerayaashu ay maalin walba garoonka tagayeen si maalinlaha haddaba daawade aragti kooban ama ra'yi ururin qof walba uu aragtidiisa nagula wadaagayo iyadoo la filayo xiriirka ay hor taalo cidii abaalmarinahaasi mutaysatay haddana dadyo kala duwan ay aragtiyo kala duwan qabaan iyadoo qof walba uu ciyaartay u badinayo haddaba 6 abaalmarinood baa la bixin doonaa mid kamida waxa ku guuleystay ciyaartoygii gool dhalinta qaaday oo Khadir Mustafa oo isaga aan cid kula tartamayn balse 5 abaalmarinood baa soo haray 5ta abaalmarinood adigu hadii aad daawanayso yaad isleedahay way u qalmaan yaad isleedahay way mutaysteen habeenka in lagu abaal mariyo haddaba ayaan ka degdegin bal adiga su'aashan ku weydiinaya waxay tahay kuma ayaa u qalma gool hayigu wanaagsan haday tahay 10 kooxood labadii dhaadhacay iyo 8 imika sii joogaba hadii aad daawanaysay kuma ayuu noqon doona gool hayaha ugu wanaagsan ee aad isleedahay wuxuu buuxiyay shuruudii looga baahnaa inuu ku guuleysto gool dhalinta gool hayaha ugu wanaagsan haddaba waxa soo raacaya waa daafici ugu wanaagsanaa dadyo badan baa qaba aragtiyo kala duwan ama daafici ugu wanaagsanaa iyadoo dadka qaar ba ay si u badinayaan 10 kooxood heerka koobaad waa kuma ayaad isleedahay daafica dadaal badan galiyay juhdi badan galiyay barar badan kala baxay isagoo aan xagga dambe waxba laga dhalin difaacay ugu wanaagsanaa yaa mutaystay iyadana waad nala wadaagi doontaa waxa sidoo kale ku jirta waa dhaxdii ugu wanaagsanaa ama kubad sameeyay ugu wanaagsanaa fursado badan abuuray assistant badan dhaliyay iyadoo criteria badan lagu xulan doono yaad isleedahay uu noqon doonaa dhaxdii ugu wanaagsanaa ciyaartoy badan baa ka soo ciyaartay horyaalka walaal dhaxduna ay tahay meesha kaliya kubadda cagta laga qiimeeyo ee isku xidha weerarka iyo daafaca kooxda yaad isleedahay uu noqon doonaa dhaxdaasi sanadkan u qalmi doona waxa ku xigaysa tababari ugu wanaagsanaa kuma ayuu noqon doonaa tababari ugu fiicnaa kubadda cagta kuma ayuu noqon doonaa tababaraha ku guuleystay horyaalka mise tababarayaal badan oo juhdi badan galiyay kooxahooda oo liidinta cas jooga kor keenay yaa noqon doonaa oo aad isleedahay uu ku guuleysan doonaa su'aasha ugu dambaysan ku weydiinayaa kuma ayuu noqon doonaa xidigii sanadka 2022 iyo 2020 kuma ayuu noqon doonaa yaa u qalmi doona yaa se ku guuleysan doona adiga ayaan ku dhaafaynaa ciyaartoy badan baa laga yaabaa inaad aragtiyo kala duwan dad badan baa kala qaba balse laakiin qofka aad isleedahay juhdi badan buu galiyay kooxdiisu caawiyay positionku doonaha ka ciyaaro yaa u qalmaya aragti ahaan haddaba daawade si joogta baad noogu xidhnaan doontaa iyadoo maalmaha soo socda xafladda abaalmarintaas ay dhici doonto aad arkayseen garoonka koobka kaliya oo lagu bixiyay dadyo badan baa isweydiinaya maxaa abaalmarinaha lagu bixin waayay waa markii ugu horeysay ee la qabanayo xaflad si heer sare loo soo agaasimay habeenkaasina ay noqon doonto habeenkii xiriirka kubadda cagta uu ku yeelan lahaa caasimadda oo iyadoo marti loo wada noqon doono